dalka Mareykanka markii ugu horeystay waxa uu qirtay in dhibaatooyin ballaaran aysan ka soo gaarin dawladda Iran. Dagaalada marka la eego goobaheeda kaydka gantaalaha meelaha laga rido iyo waliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka qayb qaadanaya weerarada. xaddigii ugu badnaa ayay dawladda Mareykanku tilmaamaysaa hadda inay gacanta ku hayso dawladda Iran. haddaba arrimahaasi maxay ku qorayaan wargeysyada waaweyn ee dalka Mareykanka xaggeesa xogtaasi laga soo xigtay. barnaamijka aroornimo ee saaka ayaad ku daawanaysaan ikhyaarta ay nala socotay. waxaan sidoo kale fiirin doonaa inta aan barnaamijka joogno xogaha ugu dambeeya ee laga qorayo diblomaasiyadda waxaana ka mid ah dawladda Iran oo hadda dib u daraasaynaysa go'aan iyo soo jeedin ka yimid dhinaca Mareykanka oo la soo mariyo Pakistan xilli xiisadu ay aad u sii kululaanayso marka la